gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil maxamed aadan jirde oo warbaahinta kula hadlayay maanta xafiiskiisa ayaa wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ku dhaliilay qiimaha uu jaangooyay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee warshada leydhka berbera maamula kaga iibiyaan shacabka berbera leydhka tamarta cadceedda laga dhaliyay ee dowladda isu tagga Imaraadka Carabtu ugu deeqday shacabka berbera. gudoomiyaha jirde waxa uu qiimaha leydhka wasiirku u jaangooyay ku tilmaamay midaan macquul ahayn in shacabka berbera lagu waasiyo 9 senti oo kaliya mashruuc ku kacay 7 milyan iyo 500 kun oo magacooda lagu soo bixiyay isla markaana ay munaafacaadsan doonaan shirkado gaar loo leeyahay isagoo shacabka berberana ugu baaqay inaanay aqbalin qiimahaasi aan waxba dhaamin kii hore looga yimin jiray leydhka kana hor yimaadaan 7 megawatt oo loogu deeqay degmada berbera oo ku joogtay 7 milyan iyo 500 kun oo doolar lacagta xaddiga leh oo ay dawladda Imaraadku caawisay degmada berbera ayaa haba yaraatee aanay jirin wax ay ka bedeshay qiimihii hore ee dhigmiyeedka ahaa ee bulshada ay ku haysay shirkadda ku gafanowday ee hadda leydhka xukunta private-ka waxaan xasuustaa bulshadu inay wax weelaysaaba qurux badan annagu haddaanu xusbi mucaarad nahay horta anagu fulin ma lihin bulshada waxaanu u awoodna inaanu codkayga ugu hiilino bulshadu haddaba haddii aanay iyadu ahayn mid wax fiirinayso dib u eegis samaynaysa haddaan ahay waa mushkilad hadasho oo ay waxa weeye ay diido waxa weeye wuxooda la lusanaya ay ka dagaalamo xaq way waxa weeye 7 megawatt waxa weeye 12 saac 12 saacadood bay baxdaa solarto 12 ka saacadood almost waa 50-50 24 saacadood 12 kamida ama 10 kamida haddii yareeyo ayay solartaasi baxdaa qiimaha sida jadwalada ku cad ama boorka ku yaala warshada horteeda saynu ka dheehan karo kambaniga private-ka ah ee leydhka berbera haysta wuxuu ilaamiyay oo boorkiisa ku qoray 2019 inuu ka dhigi doono 0.3 2019 inuu 0.3 ka dhigi doono ama 0.30 ayuu ilaamiyay boorkiisana way ku qoran tahay ogow markaa solar laba hayno solarkan Imaraadka ku caawiyo ma jireen markaa maanta oo 12 saacadood kamid ah 24kii saacadood ay solar baxdo waqtiga ay lumarayna ay tahay 2021 ayaan wali la gaarin ayaa 0.3 wali ay taagan tahay ay 2019 solar la'aan ku ballan qaadeen ayaa maanta oo ay solar hayaan 12 maraysa taariikhduna wali 0.3 ay waqtiga ku ballan qaadeen iyagoo aan solar haynin ayay maanta maraysa that means ummaddu inay isbarbardhig samayso waxa shirkadda weydiin lahaa idinkoo solar haynin oo aanay solarku waqtiga aydan isticmaalin hindiseedana aydan hayn marka 0.3 ugu sheegtaan ummadda maantana idinka oo 12 saacadood kamid ah leydh bilaasha oo solar ah heshaan ila 0.10 ka dhigtaan baa 0.15 ka dhigtaan baa siday isu waafaqaysaa bal bulshada ayaan dareensiinaya arinta waxaan u aragnaa anagu wixii ummadan lagu caawiyay oo loo heshiiyay baan u aragnaa wixii ummadan lagu caawiyay oo loo heshiiyay baan u aragnaa ummaduna ha ka hadasho xaq ay leedahay baan u leenahay ha ka hadasho mujtamaca berbera ha ka hadlaan oo ha ka falceliyaan anaguna nuqaylino ma haddana iska qayleeyay noqon mayne xildhibaan aadan axmed cali oo kamid ah xubnaha golaha deegaanka ee berbera oo isaguna geestiisa ka hadlay qiimaha wasiirku jaangooyay iibka leydhka berbera ayaa tilmaamay inaanu meel mar ahayn kana hor imanayo horumarkii magaalada berbera ku socotay oo leydhku ka ahaa qayb weyn oo muhiim ah leydhka magaalada berbera oo runtii aanu filaynay haddaanu nahay bulshada ama magaalada ay mas'uuliyiinta gobolka aanu filaynay inuu solarka la saaray ee waxaan ku weydiin 7 milyan iyo 500 ee lacaga waxaan ku weydiin lagu kiciyay inuu magaalada leydh waxaan ku weydiin jaban oo lagaga raysto leydhkii qaaliga ahaa in la helo iyo systemka soo baxaya ee magaala leeyahay waxa laga daayay lacagtii laga qaaday jiray dadka ya 00.9 anagu ma filayn umana cuntumayso bulshada berbera leydhkaas waxaanu leenahay waxa la helay leydh solar oo aan shidaal ku kacayn oo waxa ku yiri safe garoobaya lacagtii shidaalka ee warshadaha ku kici jiray si leydh jaban loo helo ayaa loo saaray solarka
lacagta intaa leega aanu sheegnay lagu soo iibiyey ama lagu qarash gareeyey sidaa darteed maadaama laydhkii magaalada uu cadceed laga dhaliyey dee bulshadu waa inay leydh waxaa ku yidhi intaa ka jabanaysaa baanu filayni manay dhixin waana ayaan darro waxaannu leenahay oo anugu hadalkayga saaka ku soo gebagabaynayaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee madaxweynuhu uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi berberi waxay u baahan tahay laydh berberi way ka duwan tahay magaalooyinka kale waa magaalo xeebeed waa magaalo kulul dan yar baa ku nool dadkaasu laydh la'aan bay magaaladii aanu joogi karayn maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV berbera